ورحمة الله وبركاته وأنيوها ولكن عبد الله فضلا سبسكرايب صار jira qaladaad guud oo aynu sameeyno dhamaanteen kuwaas oo si qon yar ah u baabi'iya xushmada iyo qadarinta dadka inoo hayaan xushmada iyo qadarinta dadka ma ahan mid inta u badan lagu hel habeena gudahood balse waxa ay u baahan tahay kasbasho kasbadaana waxay u baahan tahay shaqo adag iyo samir ficiladan aan kuu sheegi doono oo aad samaysaa waal waxa ay ka dhigi doonaan mid dadka aad u xushmeeyaan kow samee wax ka fiican waxa ay dadka kala sameeyaan waqtigan aynu joogno وما باهنيد inaad qoto geesi halgama ah si lagu qadariyo balse waa inaad samaysaa wax dadka kale ay maareen waayeen inay sameeyaan haddii aad maskaxdaada ka baadho dadka aad inta badan xushmayso waxa ku soo bixi doonto dadkaasi inay aragti ahaantaada ku guuleysteen sameynta waxyaabo waaweyn isla markaana ay dadka si fiican ula dhaqmaan bini aadam ahaan ma jecelin inaan aragno dadka kale oo inaga fiicnaanaya balse markaynu aragno qof sameeyay waxyaabo cajiib ah isla markaana haddana si fiican iloono dhaqmaayo waxaa hubaal ah inaan qofkaasi qadarin doono labo weligaa qof waxba ha ka bari haddii aad qof wax ka rabto dhibaato male inaad qofka wax weydiisato balse weligaa ha baryin bini aadam ahaan waxaynu ku soo qaadnaa qofkii ina barya uu inaga daciifsan yahay waxaana adkaanayso inaynu qofkaas xushmayno sidaa daraaddeed qofna weligaa waxba ha ka bari saddex weligaa ha noqon qof baahi badan haddii aad baahi u qabto in dareen ahaan lagu taageero ama qof aad jeceshahay shaqo lacag ama wax kastoo kale weligaa dadka ha tusin inaad waxa aad ugu sii baahan tahay dadka qaar waxaa laga yaabaa inaynan waxba u arag qof baahan balse dadka badankoodii qofka hoos ayay u eegi doonaan inaad dadka ka tambadisaa codsiyo badan telefoon wicis badan ama su'aalo badani waxay sababaysaa inaad qiimaha agtooda aad ku leedahay hoos u dhaco helina maysita xushmadii aad rabtay afar ku istaag cagahaaga dhammaanteen waxaynu nahay bini aadan waxaana aynu dhammaanteen la kulannaa waxa aynu la kulnaa waqtiyo adag dhibaatana ma leh inaad oydo ama aad samayso waxyaabo aad dareenka xun ku muujinayso balse weligaa waxyaabaha ku horsameyn dadka hortooda xataa marka aad naxdin aad u weyn aad dareento ku istaag cagahaaga oo iska dhig qof degan dadkuna aad ayay kuu xushmayn doonaan shan xushmee naftaada waxa aad u adag inaad dadka kale xushmad ka hesho haddii aad adigu naftaada xushmaynin si aad naftaada u xushmayso ilaali balanta aad naftaada la gasho aamin qiimaha aad adigu leedahay sidoo kalena ha ka baxsan dhibaatooyinka nolosha ee aad soo waajahayo ugu dambayntii waxaa hore loo yiri Roomo maalin